أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيامكم هذينينا إنو نجارسيي بشي رمضانكو ونحريس يا الرحمة إلهي أمدن أسود جيي الدون كان بلوه ويكلا نصيب بدنيهن dadkuna waa kala nasiib badan yahay, maalmuhuna way kala nasiib badan yihiin. marka ilaahay subxaanahu watacaala dadka wuu kala nasiib badnaysiiyey oo qaar baa ilaahay uu nebiyanimo u doortay iyagoo bani aadan ah. ayaamuhu way kala nasiib badan yihiinoo ilaahay maalinka jimcada ah ayuu maalmaha kaloo wiiga dhan ka fadilay. bilaha way kala fadli badan yihiinoo bisha ramadaan buu ilaahay subxaanahu watacaala bilaha ayuu ka fadilay oo bilooyinka yacni ka tilmaaman. marka doorashadaas ilaahay uu marka kala doortay dadka iyo waqtiyada iyo dhulkana waa kala sharaf badan yahay oo kala nasiib badan yahay. meel baa waxay nasiib u yeelanaysaa ilaahay in lagu caabudo oo masjid noqonayso, meelna waxay nasiib u yeelanaysaa ilaahay in lagu caasiyo. marka bishan ramadaan oo aan hadda ku dhex jirno waa bil runtii aan la soo koobi karin khayrkeeda iyo wanaaggeeda. haddii aan dhahno waxaan ka hadlaynaa waqtiga oo dhan iyadaa qaadanayso, laakiin waxaan un isku dayaynaa in aan in yar oo tilmaan ah oo ilaahay dadka caqliga iyo waxgarashada uu siiyey ku filan oo nuur u noqonayso ay waddada kusii iftiinsadaan baan ka tilmaamaynaa. ilaahay subxaana watacaala bishan wuxuu ku khaas yeelay waxyaalo fara badan. waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ah oo bishan ilaahay uu ku khaas yeelay, bishan ilaahay wuxuu ka dhigay tiirarka islaamka uu ku taagan yahay ayuu ka dhigay. islaamka tiirarku ku taagan yahay waa 5 tiir. tiirka afraad waa bisha ramadaan in la soomo. ilaahay subxaanahu watacaala suuratu lbaqara aayadda 185 wuxuu ku yiri bisha ramadaan waa bil ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey qur-aankan. shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan. bisha ramadaan waa bishii qur-aanka la soo dejiyey. bisha ramadaan marka qur-aanka ayaa ilaahay soo dejiyey. waxyaalaha ay la gaarka tahay ayay ka mid tahay qur-aanka oo ilaahay hadalkiisa ah, qur-aanka oo dawo ah, qur-aanka oo nuur ah, qur-aanka oo dastuur ah, qur-aanka oo ka hadlaya ummadihii naga horreeyey, qur-aanka oo ka hadlaya samada waxa ka koreeyo, qur-aanka oo ka hadlaya waxa iman doono. qur-aankaas oo ilaahay hadalkiisa ah waxaa la soo dejiyey bisha ramadaan. waxaa ka mid ah xadiista haddaan dhinaceeda soo qaadana, imaam albukhaari iyo muslim waxay wariyeen oo isku raaceen xadiiskii ibnu cumar inuu nabiga sala allahu calay wasalam yiri islaamka waxaa lagu dhisay 5 tiir. 5taa tiir markii shahaadada laga hadlo oo laga hadlay salaadii oo zakadii laga hadlay, soomka lagu xijisiiyey. marka soomkii wuxuu noqday tiirkii afaraad oo ka mid ah tiirarka islaamku ku taagan yahay buu ramadaankii noqday. waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala inuu haddana bishan dadka uu yacni ku farad yeelay inay soomaan, waana maalmo tirsan. ilaahay wuxuu leeyahay ayaaman macduudaatin faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar.
qofkii marka maalmo tirsan weeye ramadaanka qofkii jiran ama safar ku jiro ha iska afuro maalmo kale booskoodii ha soo geliyo. marka qur-aanka bishaas la soo dejiyey oo ilaahayna subxaanahu watacaala uu soonka nagu farad yeelay haddana naxariis baa dadkii loo fiirayayo waxaa la yidhi waa maalmo tirsane qofkii maalmahaasi cillad ay ku timaado ama cilladaas ha ahaatee jiro ama safar ha ahaatee ha iska afuro oo maalmo kale ha soo celiyo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ayuu addoommadiisa ugu naxariistay. waxyaalaha aan bishaan ka sheegi karno oo fadaa'isha ah ama dheeraadka oo ay leedahay waxaa ka mid ah bishaan waxaa ku jiro habeen la yidhaahdo leylatulqadr. habeenkaa leylatulqadrki la yidhaahdo waa habeen ka khayr badan 1000 bilood sida ilaahay qur-aankiisa uu noogu sheegay ina anzalnaahu fi leylati alqadri wamaa adraaka maa leylatu lqadr leylatu lqadri khayru min 1000 shahr. sidaasaa mataqaanaa ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa uu ku leeyahay macnaha habeenkaas leylatulqadriga la yidhaahdo oo 1000 bilood ka khayr badan. waa habeen 1000 bilood ka khayr badan. waa 82 sano maadaama ummaddan cimrigeedu iska yaryahay oo qofka laga yaaba inuu 60 iyo 70 dadka ugu badanba ay noolaadaan dadka ugu cumri dheer ayaa sanad kasta habeen baa loo dhexgeliyey. habeenkaasoo qofkii cibaadeysta oo ilaahay macnaha u cibaadeysta loogu dhufanayo 82 sano. haddii marka 10 sano aad fursad u heshid 10kaas sano oo sanadkiiba 82 sano lagugu dhuftay haddee yacni taqriiban 200 oo sano ayay ku dhowdahay. ummaddanba marka cumrigeeda ayaa lagu kabay maadaama ay macnaha iska yar tahayba waqtigeeda weeye. ilaahay subxaana watacaala wuxuu sheegay qur-aanka habeenka la soo dejiyey naftiisaba inuu leylatulqadriga yahay. oo sidee qur-aanka loo soo dejiyey? qur-aanka waxaan ognahay 23 sano inuu nabiga kusoo degayey. waxaa loo soo dejiyey qur-aanka looxul maxfuudka laga soo qaaday habeenka leylatulqadriga oo ramadaanka ku jiro. waxaa la keenay beytulciza guri la yidhaahdo oo samadan adduunyada yacni ku yaallo ayaa la keenay qur-aankii. halkaasaa marka mar walbaba munaasabadii ay ku timaado ayaa qeyb laga soo dejinayay. sidaasaa marka qur-aanka leylatulqadr baa la soo dejiyey. waxaa laga wadaa qur-aankii oo iswato oo kaamil ah ayaa looxul maxfuudka inta laga soo qaaday oo samada kore laga soo qaaday 7 samada ka kor ayaa waxaa la keenay samadan adduunyada ah oo beytulciza la yidhaahdo. halkaasaa marka 22 sano ayuu ka soo degayey. marka ilaahay markuu leeyahay inaa anzalnaahu fi leylatin mubaaraka qur-aanka waxaan soo dejinay habeen barakaysan. habeenkaa barakaysan waxaa laga wadaa sida mufasiriinta ay sheegeen habeenka leylatulqadriga waa habeenka qur-aanka la soo dejiyey. suurat dukhaan aayadda 3 ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegayaa. ilaahay soonkiisa maalinka in la soomo habeenkana salaad loo istaago qofkii arrintaasi yeelo isagoo ilaahay rumaysan yahay iyo ajir raadin uu raadinaya darteed u yeelayo ilaahay dembigiisoo dhan buu dhaafaa. waa bishaaro weyn. maxaa yeelay dadkuba waxay u nool yihiin in adduunyadana sharaf lagu noolaado aakharana janno la gala oo ayaa ilaahay mataqaanaa ayuu noo abuuray oo wax ugu weyn oo la rababa ay tahay. qofkii marka maalinkii sooma habeenkiina salaad u istaaga isagoo ilaahay ajar ka rabo oo dembi dhaaf raadinayo ilaahay dembigiisoo dhan buu dhaafaa. bukhaari iyo muslim waxay isku raaceen xadiiskii abu hureyra radiallahu canhu nabiga inuu yihi sala allahu calay wasalam qofka soomaa ramadaanka rumaysan uu ilaahay rumaysan yahay iyo ajar raadin uu ajar raadinayo qofkii u sooma
dembigiisa intii horoo tagtay baa dhan baa ilaahay dhaafaa. waa bishaaro. sidoo kale riwaayad kaloo imaamu muslim uu la gooni yahay oo isla Abu Hurayra uu wariyey wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam qofkii bisha ramadaan sooma isagoo ajar raadsi darteed u soomayo dembigiisa inta horoo dhan baa la dhaafaa. waxyaalaha ilaahay bishan uu ku karaamiyey waxaa ka mid a wax ka sheegi karno albaabada jannada in la furayo, albaabada naartana la xirayo, shayaadiinta dadka dhibaysayna laga xirayo bishan. sida imaamu muslim iyo bukhaari ay soo wariyeen xadiisi Abu Hurayra radiallahu canhu isagana sidoo kale wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam bisha ramadaan kolkay timaado albaabada jannada waa la furaa, albaabada naartana waa la xiraa, shayaadiintana waa la silsiladeeyaa. waxyaalaha bishan ay la gaarka tahay waxaa ka mid ah habeen kaste oo ramadaanka ka mid ah ilaahay dad buu naarta ka xoreeyaa. habeen walbe 30 habeen ama 29 habeen hadba bisha say ku dhamaato habeen walba ilaahay dad buu xoreynayaa. waa xadiiskii imaam axmed uu soo wariyey, xadiiskii abu umaama ay nabiga ka warisay sala allahu alay wasalam yacni oo imaam mundir uu wariyey wuxuu sidoo kale leeyahay habeen kaste ilaahay addoommada qaar buu wuxuu ka xoreeyaa naarta. imaam albazaar wuxuu wariyey xadiiskii abi saciid inuu nabiga sala allahu alay wasalam yidhi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay habeen kaste oo bisha ramadaan ka mid eh dad uu naarta ka xoreeya ayuu leeyahay. waxyaalaha bishan ay la gaarka tahay oo bilaha kale ay ugu duwan tahay waxaa ka mid ah qofka dembiyadiisii waaweynaa oo dhan marka laga reebo kuwa kabaa'irta ah oo towbada u baahan ilaahay ramadaanka ayuu ku dhaafaa. wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiiska imaamu muslim uu wariyey 5 salaadood oo la tukado ilaahay wuxuu ku dhaafaa dembiyada u dhexeeyo jumcada oo la tukado ilaa jumcada kale inta u dhexayso dembiga jimcadiya lagu dhaafaa. ramadaankan qofka sooma ilaa ramadaanka kale ilaa ramadaankan dembiyada u dhexeeyey waxaa lagu dhaafaa ramadaanka kale oo soo socdaa lagu dhaafi. haddaad maanta soontid ramadaankii aada soo dhaaftay ilaa kan inta u dhexayso dembigaagii kan baa lagu dhaafay. waa bishaaro weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala addoommada macnaha uu siiyey. waxyaalaha kale oo cajiibka leh waxaa ka mid ah inuu nabiga sala allahu calayh wasalam laga wariyey xadiiskii abu ayuub al ansaari inuu nabiga sala allahu calayh wasalam yidhi qofkii sooma bisha ramadaan oo dhammaysto 6 maalmood oo bisha shawaalka ka mid ana raacsiiya sanad qof soomay buu la mid yahay. oo waa sidee habeen kaste 10 haddii lagugu dhufto 30 beri waa 300 oo maalmood 6 baad raacisay oo bisha shawaal ah maalin kastana 10 baa lagugu dhuftay waa 360 maalmood sanadkiiba waa intaa. marka sidaas ayaa bisha ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala uu addoommada khayraadkaas iyo naxariistaas uu u dhexgeliyey. waxyaalaha ka mid ah bishan waxyaalaha la geliyay waxaa ka mid ah salaad kaste oo farad ah oo aada tukatid waxay u dhigantaa 70 salaadood oo xilliyada kale aad tukatay. oo hadda maqribkaad tukatay 70 maqrib baa lagu dhufan. tilbud baa jira marka khaas ah waddankan aan joognaa tilbud laga yidhaahdaa. tilbudka waxa weeye waxa marka la soo jebiyo oo shay joogay $10,000 aad ku helaysid $100 ayaa waxaa la yidhahaa waxa waa la soo jebiyey ama waddamadan Scandinavianka tilbudka looga yaqaano. marka bishan ramadaan waxaa jiro yacni rakhiisin baa jirto camalkii hoos loo dhigay
oo wax yar wax weyn lagugu siinayo. waxaa marka nabiga sala allahu alay wasalam ka sugnaatay min xadiisi abi dar radia allahu canhu inuu yidhi qofkii macnaha salaada taraawiixda imaamka la tukado ilaa imaamka uu salaada ka baxana la joogo wuxuu la mid yahay habeenkii o dhan qof salaad u taagnaa. kutiba lahu qiyaamu leyla, habeen dhan isagoo salaad tukanayay ayaa qofka loo qoraa. saas waa sababta ay dadku u aadayaan taraawiixda oo masaajidka loo buuxinayaa. nacam, bishan marka lama soo koobi karo waxyaalaha khayraadka ah iyo naxariista iyo raxmadda ilaahay uu geliyey. waxaa ka mid ah sadaqaadka aad bishan la baxdid bilaha kale way ka fadli badan tahay. camalka khayrka ood la samaysid, salaada sunnada aad tukatid waxay u dhigantaa salaad farad oo kale oo xilli kale aad tukatid. salaadii faradka ahaydna waxay u dhigantaa 70 salaadood. sadaqada ajirkeeda waa la labanlaabayaa. qof haddaad afurisid sooman ajirkiisii oo kalaa lagu siinayaa adoonkiisii qofkii kalena waxba laga qaadaynin. ilaahay khasaa'intiisa way buuxdaa, cidna waxba uma waayin. cidduu rabo wax ku siiyaa, dunuubtaa lagu dhaafaa, ducada waa la aqbalaa. oo yacni bishan qofka markuu sooman yahay wuxuu leeyahay baryo ilaahay uusan soo celinin. qofka marka uu afurayo oo sooman xilliga ducada la aqbalay ka mid tahay. qofka markuu sooman yahay oona muxuu ahaa salaadna uu tukaday oo gogashi uu ku tukadayna uu fadhiyo, hadduu ilaahay baryo waxyaalaha ilaahay uu ka aqbalo ayay ka mid tahay. marka bishaan waa bil fursado badan baa ku jiro. ilaahay khasaa'intiisa dhan way ballaaran tahay. cirkii dhulka isagaa iskale, wax walba isagaa haysto. waxaad isaga weydiisatid wuxuu ku siinayaa, yacni muxuu ahaa abaal la-aan buu ku siinayaa. dadku kale laakiin bani aadan kolkaad wax weydiisatid maanta oo aad biri kusoo laabatood wax weydiisatid wuuba kuu caroonba wuxuu ku leeyahay warbaryo badanaa. laakiin ilaahay mar walbood wax weydiisatid wuu kuu sii jeclaanaya oo kugu sii farxi. marka yacni cidda aan albaabkeeda la xiranin wax weydiiso. haddaad cid wax weydiisanaysid bani aadankana kolkaad wax weydiisatid bay caroonayaan, ilaahayna kolkaad wax weydiisatid buu kugu farxayaa. ilaahay marka wax weydiiso, isagaad wax walba ku siin karo, isagaana wax walba hayo, waana iimaankeenna qayb ka mid ah. bishan marka maadaama wiigii koobaad ay iska tahay waxaanu marka kusoo gaabsanaynaa 10kan ugu horeeyo in bisha Allah faa'iidadaas weyn oo aan sheegnay inaynan na dhaafin, oo habeenkiina aan salaad u taagnaano, maalinkiina aan soono. sadaqa qofkii zaka la bixi jirayna zakadiisa bisha ramadaan uu ku aagisto bixiyo. qofkii masaakiin afurin karana uu afuriyo. qofkii qaraabadiisa wax u diri karo xiriirin karana uu xiriiriyo, si ajarkaaga ilaahay kugu laabo. intaas ayaan marka maanta kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ramadaanka oo ahaa fadliga ramadaanka iyo waxa in lagu qaabila ay tahay ramadaanka. waadna mahadsantihiin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.